dareenka ama expectationka ama hanka kolba sida loo yaqaano ama rabitaanka shacabka in ay green light ay tusaan ay raacaan bulshada ay raacdo oo ay halkaas ka muuqato wixii shacabkani ay soo gudbiyeen shucuurtoodii oo baarlamaankuna soo gudbiyay natiijadana lagu soo doorto madaxweynaha cusub ayaa laga rabaa dawladda dhilan doonto oo madaxweynuhu u yahay mudane Cabdullaahi Farmaajo in ay timaado han Soomaalinimo qarannimo amni dhaqaalo garsoor caadil ah iyo magaranaysa midnimo waayo haddaan maanta lagala dagaalamin waxa masuqa iyo qabayaalada haddaan ummadda maanta lagala dagaalamin Soomaaliya waxay tiraahdaa markii waxa ay hore u socon waa jujugu waa meeshaada joog bay noqonaysaa marka lama rabo inay halkeedu ku soo noqoto qori isu dhiib way rag iga horeysay u sheegeen waxa la filayaa insha Allah bidinlaahi alkariim one man vote in loo qaxo 2021 sida taa lagu gaari lahaana dawladda Farmaajo maanta waxa hortaala caqabado badan hor yaala hawlo badan baa u yaala insha Allah bidinlaahi alkariim hadii shacabkuna ka rumeeyaan rabitaankii ay wax rabeen ay ficil u rogaan guda iyo dibadba baarlamaankana 329 ay si toos ula shaqeeyaan dawladda oo la xisaabtamaan oo toosiyaan ma la xisaabtan aad lugaha soo qabanayso maaha waa la xisaabtan ay ku jirto toosin waadi wax qaldamaan xataa la saxo oo la toosiyo loo rasaas ma aha xagee ka jirta xagga u dhaqaaji yaani noqonin madkaan isbaara loo dhigtaa inay noqonin waana aaminsanahay inay midnimada Soomaaliyeed ay degdeg u soo bixi doonto waana aaminsanahay runtii haddii nidaamkan maanta aan dareemayno iyo rabitaankeena maanta iyo madaxweynaha cusub استراتيجيديسا uu ku soo howlgalay ama uu ku soo matqana lagu soo doortay hadii ficiliyan loo rogo waan aaminsanahay 6 bilood ugu horeyso isbedel weyn inaan dareemi doono waa yahay awliyo hadaladii koobna ee Farmaajo uu jeediyay waxa uu kamid ah kuwa ugu waaweyn musuqmaasuqa in uu wax ka qabanayo waxaynu ognahay musuqmaasuqu هذا إمكان مركز لدولتها تاك تيار شرعي هذا شير مشقيه أو شرعه وحوش يقين وحوي دولتي بان أود بدن أو شرعي يكفل سو ويكون دقن جلسو أن شرين مركز إنه إمكان أجننا ما ولاية إمكان ما هي نقف أنتو حولها الدوينها على أنتو محكمة السو تاجي لو قادوا لي هاي لا حساب تبي نقف كاسي وح محكمة يكون قاضي أنت أصلا سنة يكون حكمتي لا أكتر أما هنتي إنت على الدوين هو لها يوقف كاسي للصدي ما هو أركيسها إن أي دبعت أرنتاسي شرما فرماجة أي كجا إيمانيسو كوات كان كريسو إن أو أرنتاس وحقب بس نبلغات كوجوري وكل واقعيات إن أو أرنتاس وحقبته أديات بنو كلسونا هي فرماجة وحوليه إن هرت ما أنت لبرنا هي ماها شيخي والله سعتان رئيس الوزراء وها iyada oo villa Soomaaliya xabadu ay ku dhacayso oo Makka al-Mukarrama la haysto ayaa xilka loo dhiibay waxa la socotiin sidii uu u sameeyay waxa xasuus mudan marka uu ra'iisul wasaarenimada la wareegay ayaa ilaan topiga aad hadda wax iga weydiisay weeye ayaa nin wuxuu u keenay 2 milyan markaas uu yiri ra'iisul wasaare hadda xooga waa Suuriyadaadii markaas uu yiri ma raba inaan sheego magacii iyo qofkii iyo dadkii markaas uu yiri maxay tahay markaas uu yiri waxa rabaa Suuriyadaadii iyo waxaagi warardiga tagbuy markaas haddana waxa weeye loo yeeray oo inta lagu dacweeyay rag kale ayaa la yiri ninkii wuxuu diiday lacagtii aan siino hadiyada ahayd lacagta intaanu IDBS yada kuwa hoos iyo balfiiriyo yiri xiriyaha qaxootiga halkan ku jira ma loo geeyo ninkan wuxuu rabaa in sharciga gato aniguna doqon ma iga saaru yiri horta markaan historigiisa fiirino qof walba wuxuu wax ku qabtaa far kale iyo fool ma dhaqdaa leeyahay waa team waxaan aaminsanahay inuu team adag uu sameysanayo waxaan aaminsanahay inuu yahay nin activist oo revolutionary waxaan aaminsanahay inuu kicin doono shacabka Soomaaliyeed oo sida uu beertay asagoo lagu dhagan yahay maanta wuxuu helay platformkii waxaan aaminsanahay inuu Soomaalinimo uu isku abuuri karo shanta Soomaaliyeed isku keeni karo waxaan aaminsanahay qaladaadkii ku koreeyo ka dhacay inuu ka faa'iideysanayo sharciga taagdar oo arintaasi aan laga yaabo inay
dhibaato waqti ay ku qaadato marka maxaad leedahay mar haddii marka la fiiriyo Jawaari oo gudoomiyaha baarlamaanka marka la fiiriyo Cabdi Xaashi oo aan u hambalyeeynayo oo senatarka gudoomiyahooda marka la fiiriyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan anigu aaminsanahay sharcigii inay isla shaqeynayaan saddex waxyaalood oo muhiim ah madaxweynaha iyo golaha sharci dariijiyaasha oo baarlamaanka iyo senatarada iyo madaxweynuhu inay wada jaan qaadi doonaan marka waxa yimid rabitaankii shacabka Soomaaliyeed waxa muuqda himiladii ummadda Soomaaliyeed waxaana aaminsanahay Farmaajo ninkii ka bixilaa inuu yahay waxaana Soomaalidu ku maamaadaa Ilaahay ninkuu cod la rabo ciidankeedu siiya waxa maanta inta garba u ah Jawaari iyo Cabdi Xaashi oo wadaninimadiisa la ogyahay iyo xildhibaanadii asaga soo doontay oo maanta waxa mudan in la xuso hatta boorso lacagaha nin xildhibaan lagu qabtay maanta oo aniga la igu soo sheegay markii aan idin la joogay telefishinka waxa weeye musiqii baahay oo la ogaa oo sidii la ogaa loo wixiyay kuwa diiday oo maanta intii shacabku soo hadlaysay sidii walaashay Faadimo iyo kala ilaayeen dalka iyo danihiina ama dalka u hiiliya ama dariina u hiiliya dadkii yeelay oo xildhibaanada oo soo doortay iyo sanadadii ayaan ku kalsoonaa inay kala shaqeyn doonaan waayahay qalimo run ahaantii marka la eego dalka Soomaaliya dhibaatooyin fara badan baa yaala oo muddadii hore dawladihii ku meel gaarka ahaa iyo tan imika rasmiga ahayd dawladda Xasan Sheekh intaba saameyn ku lahaa kana hor istaagay in ay wax badan ay qabtaan ay kamid tahay arrinta imika aan weydiiyay awliye oo ahay musuqmaasuqa oo bulshada caalamku hadii jeer aan aragna in ay hadeer ku eedayaan dadka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliya waxyaabaha loo dhiibo ama lacagaha loogu deeqo waxtaa sababaha loo siin la yahay badi in gacanta looga gelinayahay in ay tahay halkii ku haboonayd oo lacagta aan la marin dhibaatooyinka kale ee jira imka Farmaajo hortaagan ama kooy mar karaya waxa kamid ah dib u heshiisiin rasmi ah oo dhab ah oo sida xildhibaanada baad ka maqashay khudbadahooda aan la sameeynin waxa kamid ah maamul goboleedyada oo dhibaato badan ama khilaaf meel badan oo hadda ka jiro maamul goboleedyada kamid arrimahaasi oo dhan muddo gaaban 4 sano aan weeyo waqtiga uu haysta ma isleedahay waxay ku keenayaan arrimahaasi marka la isu geeyo in uu gudan kari waayo hawshii uu doonayay markaas uu dadweynaha Soomaaliyeed ama rajada ay ka qabaan sida ay u arkaan oo ay u haystaan hanka weyn ay u qabaan in uu noqon doono nin xil mar kaliya waxay doonayaan ummadda Soomaaliyeed dhan wada xalliye waxyaabo ka duwan oo Farmaajo maaragtay uu kaga duwan yahay dadka kale ayaa jiro nimanka kale maashadooda marka hore waxay xisbiye iyo wax isbiirsaday laakiin Farmaajo caawa oo halka xafiiska ku fadhiya qabitaanka shacabka Soomaaliyeed isna uu ogyahay waana ninka kaliya ee maanta min Boorman laga soo wacay ilaa ay Soomaaliya dhinaceeda kale ay raali ka yihiin marka waxa la doonayaa corruption ka xaqiisana the African maaragtay dawladaha Afrika corruption kuwa ugu kala roon yihiin ma aha dawladdan corruption lahayn ma jiro Soomaaliya waa wadamada si soo baxayo xaga sharciga xitaa iska liito sidii dadkaas loo dabagal lahaa oo dhimaay maanta uu dabargoyn karaa 4 sano soo socota Afrikaan kala mid nahay deynaba maaragtay ugu xumayn meelaha dhaxma u jirnaa ta kale midaynta dadka shacabka Soomaaliyeed iyo hamiga ay ka leeyihiin waa ninka kaliya ugu sahlan tahay waayo caawar rabitaankiisa ugu dariiqo Soomaaliya waxay ka wadanka ugu hooseeya xagga musuqmaasuqa weeyaan waxaan jirin dabagal baan jirin transparency and accountability koonfurta Suudaan oo hadda dhalatay ayay ka sii hooseysaa waayo wadankani wax dabagalaba ma jiro musuqmaasuqa in front of us horteen maantadan yani siyaabahan maqlayni aan fiicnayn laakiin inkastoo aad loo xakameeyay maanta haddana waxa dareemaysaa in Soomaaliya corruption uu meel aad u sarreeyay u taagan yahay wada Farmaajo ma dhigi karaan 100% waxaas uu baabi'in karaa marka Farmaajo fursad badan u haystaa Farmaajo waxa looga baahan yahay haduu doonayo expectation ma waxa hamiga laga leeyahay rajada laga qabo haduu doonayo inuu gaaro kulli tabo baaqiyada uu sameeyay ama qodbooyinkiisa 100% waxa uu ku dhawaaqay ma gaari karo way qodbada loogu talagalay campaign-ka doorashada iyo waxa markaad xafiiska fareysato aad qaban kartid way kala badan yihiin oo sida badan meel dhaxaya lagu soo dhacaa laakiin inta main-ka ah ee ugu muhiimsan sida nabadgelyada dadka oo la gaarsiiyo one man one vote waxyaabo badan dawladdu waa federaal
federaalka oo maamul goboleedyadii oo hawshooda la mideeyo oo maamul goboleed walba u dhaqmin sidii inuu dawlad gooni yahay waa maamul goboleedyada qaarkood ayaaba isu haystay inay yihiin dawlad gooni ah waxaad arkaysaa maamul goboleed leh dunida lagama sheegin Mareykanka federaal oo dawlad weyn ah federaal gobol kamida federaalka steedyada heshiis military lama geli karo dawlad kale laakiin Soomaaliya waxaan haynaa maamul goboleed ma federaal kamida federaalada Soomaaliya uu ka kooban yahay oo intay baxdo dawlad la soo galaysa heshiis military waxaad arkaysaa dawlad goboleed leh wasiirka difaaca lama sheegin wasiirka difaaca waa inuu noqdaa midka central government-ka waxyaabaha aanay federaalku waa inaan lahayn laakiin aad moodaba in sharciga ma dastuurkeenu yani maaha in la isaga tago wasiir difaac lama samaysan karo xagga lacagta waa ka midaysanahay laakiin waxaan arkay maamul goboleed ma raba inaan magaciisa sheego kamida maamul goboleedyada ay Soomaalidu badan ay og yihiin intuu baxay dawlad kale oo darsan intuu la soo saxeeday heshiis military waa dawlad goboleed marka qaarkood waxay u dhaqmaan sida inay independent government kuwaana waa in maskaxdooda mentality-gooda ay u bedelaan inay yihiin dawlad kamida federaalka Soomaaliya waxyaabaha go'aamada ee dawladda dhexe ay qaadan kartana ay u daayaan waxa kale kamida rag baa jira aaditaanka Addis Ababa ama Nairobi ay uga fududahay inay Nairobi aadan ama Addis Ababa aadan ayaa u fudud inuu Muqdisho soo aado capitalka laga xukumay federaalku ka mid yahay taana inay iska daayaan mentality-ga inay daayaan wartaasi qarannimadeena iyo sharafteena iyo dadnimadeena bay hoos u dhigaysaa qiimaha nalagu yani meeshii la gaarsiin lahaa ay hoos u dhigaysaa markaas isagoo midalay dawlad markuu duulay waliba sida badan media u yeertaan oo diyaaradda markuu raacayso loo arko xagga markuu ka dagay waxa soo dhaweeya mid kamida wasaaradda arrimaha dibadda oo la ogeeyay goor soo dagay xataa marka in sharaftaadu waxay ku dhismaysaa inaad horta dawladda federaalka si dhab ah ula shaqeyso magaalada madaxdaana aanu ogaatay in Muqdisho tahay madaxweynahaagan uu xagga fadhiyo unan fadhinin Addis Ababa ama Nairobi ama magaalooyin kale ka sii fog marka waxaan dhihi dawladaha federaalka madaxweynaha cusub si dhab ah ula shaqeeya wuxuu ku yimid rabitaanka shacabka adiga aad madaxweynaha goboleedka u tahay rabitaankiisu ku yimid caawa Boorman laga soo waay oo Puntland laga soo oo Hargeysa laga soo oo Kismaayo email ba sidaas noo laga dhigsan dadka caawa badbaldegayaan Muqdisho maanta caawa dadku farxad iyo sawirada halkaas ka arkayna Muqdisho markaan dhahno deegaanka uu ka yimid farmaajo dadka ka soo jeeda xitaa 5% ka magaalada Muqdisho caawana magaalada Muqdisho 100% wada baldegaysa waxaad ogaanaysaa inuu ku yimid rabitaanka shacabka maamul goboleedyada please ninka hadda yimid ee rabitaanka shacabka ku yimid ee shacabka aad madaxda u tihiin rabitaankooda ay raali ka yihiin 100% la shaqeeya Addis Ababa iyo Nairobi aadina u imaada la tashta mideeda kale miidiyaha Soomaaliyeed message-yada hadallada ay isu gudbinaysa madaxweynaha ama dawladda hadlaysa maamul goboleedku wuxuu rabaa inuu miidiyaha uga jawaabo war maaha war diplomatic channel mara oo diblomaasiyadda hoos ugu dhiga oo sharafteena soo celiya oo yaana kala shukaansanin oo dawladaha dariska waxay u kala cararaan maamul goboleedyada madaxda u ah wuxuu leeyahay maamul goboleed hebel anigu hoos yimaada maamul goboleed wuxuu inta barashar ku saara madaxweynaha dalka taa ka gudba waxaad u gudubtaan in fikirkaaga iyo wax qabadkaaga iyo hor socodkaaga iyo sharaftaada inay ku jirto inaad wax la qabsato dawladda dhexe iskana casila wasiirada difaaca iyo maamul goboleedyada intay baxaan military la soo saxiixanay wadamada kale mideeda kale waxaan aan ogaaday dawladdu markay u ololeyso in cunaqabataynta militariga laga qaasiyaan ciidan xoog loo dhisano maamul goboleedyada qaarkood ayaa warqad qor oo yiraahdo may waa gobol ayaa la siinay ama deegaan ama reer hebel la siinay war hadaan laga qaado cunaqabataynta goormad ka maarmaysa ciidankan ku dhex jooga Amazon goorman qaran jira noqonayna goorman albaabadana xuduudaha xiranayna mise waxa jirtay habeen iyo maalin in Addis Ababa Nairobi la kaga yimaado oo saan lagu waad mahadsantahay qalin fursad hala siiyo farmaajo rabitaankeenu ku jooga please hala la shaqeeyo maamul goboleedana hala shaqeeyo intaadaasi insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay ku dhacdo dhagal dad badan oo markaasi u soo joogsada laakiin maamul goboleedku marka la eego anagoo telefoonadii aan ku soo noqon doono mar kale dadweynaha aan siin doono fursad kale in ay ka hello ha alaykum asalaam magacaaga meesha ka soo hadlayso magacaygu waa Salim way waxaan ka soo hadlayaa UK ka halkee Northampton magaalada leeyahay baan deganahay aye waa Northampton soo dhawow salaam aye
nihow marka hore waxaan u hambaleynayaa madaxweynaheena cusub farmaajo tan kale waxaan sidoo kale u hambaleynayaa madaxweynaheeni hore oo sida sharaf leh ku mataqaanaa dhiibay maxaa la hayay kursiga marka caawa waxaan u maleynayaa inay tahay habeen Soomaali u dhalatay maxaa la hayay maalin habeen cusub marka waxaan rabaa si qaas ah inaan dalka Soomaalida matalo oo xildhibaanada ah ama wasiirada ah ayaan caawa halkan inaan wax yar aan kaga hadlay rabaa u sheego farmaajo wax kale ma ku jeclaanin Soomaaliya maanta caawa qof walba waxay ugu faraxsan tahay 6 bilood oo dalka joogay wax kabadkiisa ayaa maanta meel walba mataqaana loogu dawaldegaya ninka Soomaaliya rabo inaad farmaajo kala naqato oo caawa min Muqdisho Kismaayo Boosaaso buuhol meel walba Soomaaliya joogtay caawa farxadda ay ninkaas u qabto waa asiga kaysasho oo ka kaysa shacabkiisa warni walbo hadaarato 4 sano oo soo socoto in Soomaaliya ku jeclaato ay baarlamaankaasna ku gacmo qabtaan adiga ku dhahan war ninkaas arabnaay Soomaaliya baarlamaanku ninkaas noo doorta farmaajo waxa uu noqday ku dayasho nin mudan markii Ilaahay waxaan ka baryayaa ninkaas inuu xilkiisa la garab galo in mataqaana Soomaali mid maanta isku keeno oo maanta mataqaana maxal lahay ay Soomaali maanta isku raacdo ay ku midowdo ay mataqaana Soomaali weligeed ku xasuusto inay naqato waayahay tan kale raaliga naqala caawa emotional baa aad u faraxsanahay weligay Allah ma fiirsanin weligay waa markii ugu horeysay doorasho aan hor fadhiiso TV soco waan ku siinayna waqti baan ku siinayna weligay ma wallahi ma hor fadhiisan marka weligay doorasho hata Soomaaliya ka dhacayso waa madaxweyne ugu horeeyay oo aan TV hor fadhiisto oo aan fiirsado oo mataqaana aad aan u taageersanaa anigoo mataqaana markaas Soomaaliya ka imaaday oo mataqaana kaga dhashay wasiile ku dhashay oo farmaajo mataqaana waxa la haysto oo mataqaana oo jaceelkaan u jawili ma garanayo sababta ay keentay ninkaas emotional aan u taageer ma garanayo xataa ma garanayo laakiin se waa waxaan ka arkay dadkii xuriyamiinta waxyaabihii ciidanka uu qabtay caawa ciidanka xabadaha waxay uridayaan ma ahan jaceyl ay mataqaana ay jecel yihiin farmaajo ma ahan waa jaceyl ay jecel yihiin dadweynaha rabitaankooda waa jaceyl ay jecel yihiin baarlamaanka Soomaaliya oo muujiyay maanta shacabkii bandooga lagu riday oo guryahooda ku jiro oo caawa banaanka u soo baxay oo caawa muujiyay in shabaab waxba dili karin ay Soomaali maanta waxaan dareemayaa arrintan tii Turkiga ka dhacday ka dhacay Soomaaliya caawa shacabka Muqdisho weligood wax la jiro iska soo bixina bamba lagu riday iska soo bixina gaari baa lagu qixinay caawa maxaa shacabka soo bixiyay ya ما شاء الله aad baan ku salaamayna qeyrada wadaninimo iyo faraxa ka muuqda iyo runtii sida aad u cabirtay aragtidaada intaba aad baan u soo dhaweynaynaa halo telefoonka xiga halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مقعد مش هتكسر الله يسوع والله محمد عبد جدال بالله وحنا كسر الله يا وطن كمريكان كا يا محمد سود و برنامجك هذا لسه اعتبار في الأيام دي دورشة في عمان برنامج كله سعودي خاصة حتى هذا كان ويزداون يا هذه هذا شعور هذا لما سووا بكرة عاوة ما نبغى نقولنا wadanka in badan baan qalalaas iyo buuq iyo qaxar ku jirnay sunaantii waxaan oran karaa maanta waxay noo dhalatay jawi cusub iyo hawo cusub waxaan oran karaa run ahaantii intaasoo sanaan bilaa dowlad ahayn ha soo marto madaxweyneyaal kala duwan balse wadanka baarlamaanka caawa say wax u doorteen waxaan oran karaa shacabkii wax doorteen ay tahay ya marka insha Allah waxaan rajaynayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ilaahay la garab galo xilka uu qaaday uu ku asturo ونقطة كي ودن كيس هرمري
waxaa farmaajo sheegaa intii muddadii yareed uu hayay xilka inuu wadanka horumar badan gaarsiiyo marka kii horumarkii uu markii hore sameeyey iyo mid lamida oo ka weyn ayaan ka rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo insha allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay walwal weyn baa naga hayay maraykanka walwalkaas oo ahaa micnaha in madaxweynihii cusub ee maraykanka la doortay inuu cunaqabateyn dee kusoo rogay wadamada muslimka khaasatan ummadda soomaaliyeed aad baan arrintaa uga naxsanaa caawa laakiin markaan arkay in farmaajo la doortay 100% waxaan oran karaa in dee nin wadankiisii uu nabad u noqonayo aan ahay oo wadankayga ku laaban karo aan su-aal aan ku weydiiye ma dhici kartaa maadaama uu isagu farmaajo uu yahay nin dhalasho maraykana haysta dalka maraykankana uu muddo dheer u deganaa haatana madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya uu noqday in uu Trump aragtidiisa gaar ahaan Soomaalida in uu wax ka bedeli karayo ma isleedahay way dhici kartaa ma qabtaa in wax ka bedeli karo kolley ilama aha ninkaasi go'aano uu isagu samaystay ayaa jira inkastoo ay kasoo jeedaan maxkamadaha wadanka maraykanka kasoo horjeedaan balse haddana ma odhan karo go-aanadiisi uu bedeli karaa sababto waa wax uu ku dhawaaqay oo hadal ka dhacay weeyaan inkastoo ay ku adkeynayaan maxkamadaha maraykanku haddana khaasatan ha ahaatee ani kolley farxadda gurigayga caawa ka muuqata weligay kamaan dhicin sababto dee qof muwaadino oo wadankiisii nabad u yahay baaban waqti xaadirka aan nusku haysta ilaahayna arrinta harada dabagalo waxaan rajaynayaa dadka la shaqeeya iyo xukuumadda la shaqeynaysa dhammaan iyo xildhibaanada inay si wanaagsan oo la shaqeeyaan uu noqdo dee wadan horumarka aad iyo aad baan idin salaamaya waad mahadsantahay aad baan anaguna ku salaamaynaa aad iyo aad ayaan ku salaamaynaa hello dadweynaha waxaan isku dayaynaa raalli ahaada in aan aad u raalli gelin oo farxaddu iyana ay inala qaybsadaan oo fikir ay cabiraan hello assalaamu calaykum assalaam waraxmatullaahi magacaaga meeshaad ka soo hadlayso waxaan soo hadlaya London haye magacaaga Amina haye soo dhawo barnaamijka wad la socotay baan u maraynayay doorashadii iyo xamar wixii maanta ka dhacay wad la socotaa waa la socdaa maasha Allah anigoo shaqo ku jiro wataa shaqada dhowr jeer lagu qabtay aan iska diminay maanta dhan Facebook ka daawanay maasha Allah haye maxaad oran lahayd maanta madaxweynaha la doortay wallahi alxamdulillah ilaahay ma hadda iskala markuu ku horeyso aad aan ugu faraxsanahay wallahi maanta duhuraan ku imaaday mar laba rakac dugtay oo sunnada ugu horeysay laba rakac afar rakac oo sunnada ka horeyso aadaan u duceeyay macna mu duceeyay ilaahay mid hebel oo saar laakiin mid ilaahay og yahay oo diinta iyo dadka islaam walba iyo Soomaalida u fiican inuu ilaahay noogu dhiibo farmaajana aad iyo aad ugu farxay aad u jecelnahay maanta waxaan dareemayaa inay xataa xildhibaanada aysan dooran ummadda Nabi Maxamed oo Soomaalida ah qalbiga ilaahay uu og yahay uu ku imaado meeshaas farmaajo marka ducaynaysay qalbigaaga ma ku jiray kuwa qalbigaad ku ducaynaysay inuu kamid ahaa ma ku jiray qalbigaaga waan jecelnahay waxa haye waxaan dhahay ilaahow ninkaasaan jecelnahay adiga wax walba oo mulkiga gacantaada ku jira oo maanta cid kale mulkiga kula wadaagan adaan wax walba bixiya hadaaba khayrku ogtahay ilaahna ku dhiib waa ku ducay sujuuda okay sax weey ma sha Allah waxaan haye socod waxaan sheegayaa farmaajo haduu i maqlaayo ku faraxsanahay ilaahay cadawga ka qabto inuu dalka iyo diintaba aad oo diinta wadanka aad u fiiriyo because diinta ninka u gargaaro ilaaha u gargaarayo sax ilaahay markuu ku jeclaadana ummadda dhan ku jeclaanayso waa la ogyahay sax weey marka inuu noqdo mid diinta iyo dalka iyo islaamka dhan u fiican oo u gargaaro inuu ilaahay ka dhigo ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay because wadankeena
waxyaalaha ka mid oo dhibaatada iyo fitnadana waxaa ka mid ah macsiyada waa ku bateen munkarka waa ku batay yani markii ilaahay u gargaar ilaahay wuxuu ninkii diinteeda u gargaar anna waa u gargaara ayuu yidhi dhibaatadan aaday u badan tahay insha allah biidni illah waa u duceynayna haddan inuu ilaahay cadowga ka qabto wixii dhib soo wada inuu ilaahay ka qabta ugu duceynaya inuu ilaahay xaqa tuso farmaajo waxaa ku doortay shacabka soomaaliyeed qalbigooda ilaahay ogaa la soco waxaan aaminsanahay xildhibaan inuusan ku dooranin waxaan aaminsanahay because waxaa ka dareemaysaa shacabka sida ay ku jeclaayeen hooyaday tabeele hadda hore wadan jirta waagii mar hore oo lagu doorashada ku jiri jirtay aan xasuustaa marka ilaahay ha kaa dhigo midki diinta iyo dadka soomaalida iyo muslimkas wax tara آمين آمين أد بعض ما هتصنتها يا حنقنن شرما دنبالا ودراي إنه صنقنن مد لجو فرح هذا مد ضدك كنحية صح صح فرجلت إن ضدك أو لجو هاي إنه نجقبت إلهها أو لجرجارو مركز وحنا كفرع إن إلهي جرب ستة وياهي وحاجة تعادل ما أنت كلا جو لها رجع يدوم القف على قف كي صوعة saakay baan markaan subaxga tukanay ayaan waxaan ila xaajiyadii bal aan ducaynayo markaasaan ilaahay oo kii dalkiya diinteeda markaas ilaahay baa iga sareeyay markaas waxa la war ku dar farmaajo iska dhig adigu maxaa xaajiyadii moogtay halkan kursiga uu muxtaar sheekh fadhiyo ayaa maalin gabi ka sheego dib loo soo celin kuwii nabadda nabaddeeda ee boo daruur caafimaad maanta nagu dooji ee boo midaan nacab ku diran diida amadkooda ee boo mid gabay noocaas markaan ka soo baxay studio-ni wuxuu igu yiri in adeero maxaad farmaajo u dhiwaydo magaciisa weydo inkastoo diiday marka waxaanu sida gabadhu sheegtay anigu waxaan aaminsanahay wax samada laga aqbalay inay tahay shacabka Soomaaliyeedna waxaan fiirsanayay shanta telefishin oo Soomaalidu ay leedahay ugu waaweyn ayaa waxa laga fiirinaya yaa mudan shacabka Soomaaliyeed intuu maanta ka helay ka badan ayaa qof walba caleen farmaajo Facebook social media oo dhan marka waa aad baan u aaminsanahay waa ninkaan samada laga watay Soomaaliyeed dhibkeeda halka ku yeelay waa run xilka qofka loo dhiibay laftigiisu wuxuu leeyahay in loo dhiibo oo isaga lagu fidnaynayo laftigiisa iyo in ilaahay dadka shacabka ku badbaadinayo labada dhinacba way noqotaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa ducada dadku ay soo ducaynayeen inuu isagana dhibkiisa uu dhaafiyo ummadana uu noqdo kii wax u qabta waayahay kaalintii telefoonada wali dadka aad baan doonaynaa inay aan waqtiga u helin inay TV-ga ka soo hadlaan fursadahan oo kale in ay runtii ay qayb weyn aanu sinna hello assalaamu alaykum alaykum asalaam rahmatullah Abdurrahman Sheikh Ismail Suudan ka soo hadlaya haye Abdurrahman aad baan ku soo dhaweynaynaa aad baan ugu salaamay aad baan ugu faraxsanahay haye in badan oo loo jiray waa kastooda qaataan waxaan inay dad badan fikirayaan oo ay wadannimada ku jirto ay maanta la tusay haye marka waxa weyn madaxweynaha waxaan leeyahay ilaahay ku garab galo ilaahay waxa weeyaan hadalka abuurka ku jiray ficilkaaga inuu mideeyo inaga ahaan Soomaaliyeedna dad wada dhashay walaalena meel kasta joogno hadda in isku tagno waxbaynu wada qabsan karnaa wax walbana waynu horumari karnaa laakiin inta laynagu dhex jiro waxa weeyaan waxa ma samaysan karno marka aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa war guul loo soo yeetaan oo Soomaaliyeed inay dad badan fikirayaan oo ay wadanimadii leeyihiin oo dadnimadii leeyihiin oo diintii leeyihiin okay صح marka aad baan u salaamaya shacabka Soomaaliyeed meel kasta jooga way Abdurrahman aad baan ku salaameynaa وهي تلفونات قدر إنه حكينه شيخ مختار هذا كان قدام بي دباتوين كا وهاين فرماجة كهر إيمان كريا قليما ونقاد ودير هذا
arrintaasi maamul goboleedyada sida qalimo uu sheegayay run ahaantii la oran karaya iyadoon loo diyaar garoobin oo dadka Soomaaliyeed wax fikra aanay ka haysanin federaalka hanaanka federaalka iyo sida uu u shaqeyn karayo ama laga doonayo inuu u shaqeeyo ayaa lagu degdegay oo taasina waa sababaha keenay yani madaxweynayaasha maamul goboleedyadu intay israacaan oo iyagoon dawladii dhex wax tala gelina oo ay la yeesheen aanay jirin in ay isu raacaan iyagoo ama ay aadaanba meesha doonaan ama mid waliba meesha uu doono isagu uu aado sidii madaxweynihii Soomaaliya oo kale dabadna loo qaabilo madaxda kale ay u tagayeen laftigoodu يعني si waxay u qaabilaan marka qaar kood aad arkayso sidii madaxweynaha dawladda federaalka oo kale arrintaas oo loo arki karayo in ay tahay talaabo ujeeda muujin karaya waxa isla arinta horta waxaan fadhinaa farxad iyo maarkaysa iyo doorashadan farmaajo iyo isbedel ka dhacay dawladda federaalka hanaankeeda sare arinta dawlad goboleedku waa arin u baahan doodeeda iyo waqtigeeda مثلا دولة قبلية قاربة فدرال كهري ويقول دولة معمول هايست أو ضد مثلا فدرال كل شيء نظام كفدرال كدولة قبلية كشغيان مركز بعضين إن قلدي هذا وحسن ما ضحضوا دولة قدام ميسين حوجا إن نيد يكلسون ده ما يوناجينه دولة قبلية قاربة معركتي إن عقبات بدن هردجان سدا دولة قبلية كجبلان وكله علاض يدقالوا موجيان مدة ضمبوا هذا مثلا إن كدلتي معركة هير شباب dad badan oo reer beledweyne aad uga soo horjeedeen beledweyne caasimadii kamid ah sideedii magaalo dalka ugu horeysay ayaa intii laga raray baa jawhar la geeyay dad badan baa dhibsanay marka waxa badan baa waxa moodaa inaan iyadoon loo diyaar garoobino si fiican loo shaandhayn lagu degdegay marka waxa la rabaa in arintaasi waqtigeeda la galo carqaladaha horta aniga aan rabo inaan maanta ka sharxno waa kuwa asaasiga hadii laga gudbo waxyaabaha furuucda ah dib ma leh waxyaabaha asaasiga waa in la saxo qodobka ugu muhiimsan waxa weey Soomaalidu waxa yaqaan waxa la yiraahdo dad baa iska dilay marka xal dhalay aan ka noqon waa isafine xisaabta wax leeyahay ma jiro ninba adduunka dhan qaribaya waxa alla wuxuu rabo sameeynaya musuqmaasuq wuxuu rabo dhacaya lacag dawladdan buu cagdinay waxa leeyahay waa tagay naga daayay ha tagay Soomaalidu horta waa in la baro waxa la yiraahdo xisaabta waa in la xisaabtamo wixii ninkii xil qabtay nin xil qaaday waxay dhaan Soomaalidu eed qaad ninkii xil qabta waa in la xisaabtamo aan la eedan kaliya qodobka koobaad weey qodobka labaad waxa weey waxyaabaha shaambadda nagu dhacday intii dawladdeenu burburtay deeyaan loo qabanin dawlad laanta keentay Soomaaliya table-ka musuqmaasuq adduunka ugu hooseysa Soomaaliya musuqmaasuq Soomaaliya la sheegayo waa intaan siyaasiyiintan marka shacabka ka soo dhacday iyagu xukunka u wada ordiyo iyagu iswada Soomaaliya dhan musuqmaasuq ma taqaano ma garanaysa Soomaalidu waxay ugu hooseysaa darajada ugu hooseysa adduunka gashay darajo meesha noocaas waxa weeye wax dawlad goboleed laanta noo keentay Soomaalidu waxa kaaga filanba dib waxa kuugu filan Soomaaliya hadda 10 dadka adduunka loo dhigay jaamacadaha waxa laga dhigaa dawlad burburtay maxay tahay marka Soomaaliya tusaale loo soo qaataa fail state waxa la yiraahdo maxay tahay marka la yiraahdo dad Soomaaliya tusaale loo soo qaataa anaga ka sheekay xalay waxaan dawladnimo aqoon marka horta inaan darajada meeshaas ka kacno waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeye oo markii musuqmaasuq iyo xisaabta yimaado musuqmaasuq la baabiyo waa in la helo dib u heshiisiin sax ah oo Soomaali kalsoonideedii isu keenta ama dawlad goboleed ha ahaado ama dawlad la'aan ha ahaado ama ma garanaysaa tuulo hadda ganaan ama cirif hadda ganaan ama madax banaanaha joogto ama isu sheegan ama Soomaali hadda ganaan dibadda hadda Soomaali horta in dib heshiisiin colaad baa dhacday kalsoonidii baa luntay waa laga soo baxay colaad ma jirto dadku waa saddex mushaaxa magaalada artaagaysa ama haddii aan ka yimid magaalo ilaa Hargeysa ilaa Muqdisho meel baad maraysa cid qabiil kula hadlaysa hadda Soomaaliya ma jirto laakiin in dadka kalsoonidii walaalnimadii maanta ka muuqato Soomaaliya iyo wadanimada hadda xamar looga dabaaldegayo in laga run sheego horta dad kalsoonidooda la soo dabo shaqada u horeysa dawladda federaalka u taal hadda iyo farmaajo midaas sababta markii taal la keeno waxa la helayaa in la dhiso ciidan qaran markii la dhisana waxa laga maarmayaa amisom markii laga maarmo waxa laga maarmayaa fargalinta shay waa in sida waxa u kala horeeyaan loo kala qaado مثلا ninka dawlad goboleedka jooga in Puntland wuxuu dhahayaa ciidan hadii xamar laga dhiso ciidan qabiil buu noqonayaa Xasan Sheekh ma garanaysa federaalka daacad kama ahayn maanta ninkaas ma dhihi karo ciidan qabiil baa la dhisayaa sababtoo ah Xasan Sheekh waa tagay iyo markaysa haduu wax gooniya oo Xasan Sheekh ku xaglinayay marka waxa la rabaa in la helo kalsooni ummadda Soomaaliyeed dhextimaada markii taas la helo
ciidanka qaranku waa inuu ka yimaado meesha Soomaaliya u shisheeyay iyo meesha u dambaysa oo uu noqdo ciidan Soomaalinimo matala oo aan laga qabanin xaafad kaliya iyo goob kaliya markii taa la dhiso ayaa waxa la helayaa in la helo midayn dawlad goboleedyadii iyo dawladda dhexe wada shaqayn inaan loo baahan wasiir ciidan oo dawlad goboleedyada leeyahay looma baahna wasiir arrimaha dibadda dawlad goboleedyada looma baahna in la helo heshiis dawlad goboleed la gasho dawlad kale looma baahna laakiin sharcigii dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe waxa ka horeysa wada dhaqankoodii wada falgalkoodii waxa ka horeeya ummadda Soomaaliyeed in la isu keeno markii taa la helaa waxa kale oo dhan ma arkaysaa baabaaya waxa kale oo dawladdan hor yaala inay Soomaaliya maqaamkeedii keento Soomaaliya maqaamkeedu waa luusan yahay hawadeena dawladda darisa control dhaqaale badeena waa la guranaya dhulkeena waa la isku haystaa waxa horta moogta Soomaalidu waxay eegtaa meelo hoose maanta dawladdan waxaan ka sugaynaa farmaajo insha Allah dawladda u soo dhisi doona inay dawlad tayan noqoto oo midaysa ummadda Soomaaliyeed Soomaaliyana maqaamkeedii keenta baarlamaankan waxaan ka codsanaynaa inay saddex la dagaalaan saddex ma iyo saddexda maada waxa weeye mooshin musuqmaasuq iyo magaalo reer weey horta waa inay haraan saddexaas waa inay haraan ma garanaysaa waa qabyo xasan iyo qabiil weeye iyo waa in la kala qoqobnaado waa inay harto oo dadkan Soomaaliyeed la isu furo oo dawlad goboleedku ay noqoto dawlad dadka gobolka wadagan oo qabiilka rabaan ha noqdeen ka dhaxaysa oo aan qabiil mathalin oo aan mathalin dan gaara oo aan mathalin gooni ah dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka sharci ku shaqayn lahayn dhameystiro lana garab istaago ninka jooga dawladaha federaalka maanta wuxuu ku khasban yahay ama hay'ad ama hadeeyay inuu raaco rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ee loo doortay farmaajo dawladda inuu hogaanka waa ku khasban yihiin ninkii diidana dawlad goboleed dadka jooga ku kacay waana inay ku kacaan oo ka hor yimaadaan وهجاج سلامولا maamul goboleedyada dhibaatooyinka imika durba ka abuurmay xagga siyaasadda markaynu halka iska dhigno dhan dhaqaalaha jira dhanka dhaqaale waxa ay muuska imika mesela laga soo raro koonfurta dalka Soomaaliya marka uu u socdo mesela Hargeysa oo kale baydhaba waxa laga yaabaa hadii laga soo raro dhanka Kismaayo hadii laga soo raro wajibada hoose meelaha sod intaas oo maamulku iska bada kontroolada maamul goboleed walba wuxuu doonayaa inuu canshuur ka qaado tii waxa laga qaadayaa federaalka magaalooyinka iyaguna ka qaadaya xabada muuska waxa laga yaabaa in ay Hargeysa ku tagto $2 halkii laga awal ay dhici kari lahayd wax $1 ka yar lugma shilin oo kale ama 2 shilin oo kale aragnaa arintaasi inta maamul goboleedyadu ay yimaadeen ay arintaas ay jirto jawhar baa ka soo qaadaysa waxa ka soo qaadaysa baydhaba ka soo qaadaysa Kismaayo ka soo qaadaysa galmudug baa ka qaadaysa Puntland baa ka qaadaysa yani intaas oo dhan markuu soo sabr intaba mid walba cashuur bay ka qaadaysa dhibaato dhaqaale oo hor leh oo ummadda Soomaaliyeed aanay qabi jirin ay soo kordhayso kugu muuqata waa mahadsantahay Shaafi haddii aad iga ogolaato wax yar hal second ama 1 minute inaan wali wax ka yar insha Allah dhinaca siyaasadda mar hadaad gobolada soo qaaday ama maamul goboleedyada inaan xoog yar dib u dhigno bacdama walaalkeen Muxtaar ka hadlay yar baan jeclaan lahaa inaan kaga noqdo runtii qalimo iyo ragiga hore ay tilmaameen meelaha qaar runtii dawladdan federaalka Soomaaliya ee maanta uu hogaanku u noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa laga rabaa haddii shalay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ay la soo daaladaceen isbaarooyinkii faraha badnaa ee loo dhiganayay ee maamul goboleedyada ay dhiganayeen ay wax badan ka qaban weyno caqabadaha ugu weyn ay noqdeen maanta dawladda Farmaajo biidinlaahi alkarim waa inay ka gudubtaa haddaanay ka gudbin oo maamul goboleedyadu noqonin kuwa